inta badan isboortiga waxaa lagu arkaa waxyaabo kala duwan oo ku aadan in la weeraro shakhsiyaad caan ah. waxaa jira ciyaaryahano fara badan oo ka cabanaya arrinta ku aadan in weeraro fara badan loo geystay iyaga iyo qoyskooda. haddaba ciyaartooyda kriketka ee England James Vince ayaa sheegay in qoyskiisa ay ku nool yihiin cabsi aad u weyn kadib markii gurigoodii lagu weeraray 2 goor oo isxigta. guriga kabtaanka Hampshire ee Southampton iyo 2 caruur ah ayaa markii ugu horeysay la burburiyay bishii Abriil 3 waxaana taasi ay keentay in xaaskiisa Amy iyo 2 caruur ah oo yaryar ay ku toosaan qayladhaan iyo dhawaqa muyaaradaha la jabinaya. qoyska ayaa ka guuray guriga iyadoo durbaba guriga dayactir lagu sameeyay in ka badan 1 bil. si kastaba ahaatee hantida ayaa mar kale la weeraray 1 isbuuc kadib markii la dhameeyay dayactirka, waxayna ku soo laabteen guriga qoyska sida uu sheegay Telegraph. Baleyska weli ma helin sababta ka dambeysay weerarada, laakiin Mr. Vince oo ah 33 sano jir wuxuu toonsan yahay in kiiskani uu yahay mid aqoonsi qaldan oo isagoo markaas uuna jirin wax uu sameeyay balse qofka lagu qaldayo. qoyska ayaa waxay markaasi rabaan in tani si aada loo joogteeyo. markii laga hadlo baaritaanka waxay codsadeen in qof kastoo macluumaad haya inuu yimaado saldhigga booliiska, waxaana ciyaaryahanka kriketka uu yidhi waxaan u baahannahay inaan ogaano waxa socda si nolosheena ay caadiga ugu soo laabato oo aan nabad u helno. qoyska waxay xoojiyeen tafaasiilkooda amni waxayna shaqaalaysiiyeen khubaro dembiyada ku takhasusay si ay ula socdaan xaaladda guriga, laakiin ciyaaryahanka ayaa sheegay in weli ay dareemayaan cabsi aad u xoogan iyo in mar kale la weeraro. laacibka Ingiriiska ayaa dib u xasuustay sida markii u dhacay weerarkii ugu horeeyay ee Abriil 15 si lama filaan ahaa, wuxuuna ku soo toosay jug iyo qayladhaan aad u xoogan. waxa uu sheegay in aanu wax fikrad ah ka haysan wax dhacaya inta lagu guda jiro weerarka oo ahaa mid aad u xoogan. si toos ah ayaan markaasi u degnay si aan caruurta u hubino amnigooda inay nabad qabaan, ayuu u sheegay wargeyska, isagoo intaasi ku daray in markii ay booliiska la xiriireen uu durbo baxsaday amaba ay baxsadeen shakhsiyaadkii arrinkaasi ka dambeeyey. wuxuu sheegay in qof deriska ah uu arkay baabuur meesha ka fogaaday oo sidoo kale isagoo aad u sii cararaya. guriga qoyska ayaa mar labaad la weeraray 11 May saqdhexe. muuqaalada kaamirada ee CCTV ee weerarka ayaa muujinaya nin huwan maasgaro oo wax ku tuuraya dabaqa guriga. Mr. Vince oo waqtigaasi weli soo jeeday ayaa yidhi waxaan awooday inaan si degdeg ah ugu soo dego dabaqa, waxaan dareemayay wax badan oo ku saabsan xaaladda jirta. waxa uu sheegay weerarku ma ahayn wax la yaab leh sababtoo ah waxa uu dhacay bil ka hor xaaladdan oo kale. Mr. Vince waxa uu xusay in uu tuhmanaha uu si degdeg ah ugu baxay, balse waxaan u malaynayaa inay taasi sabab u tahay in ay arkayaan dhaqdhaqaaqa guriga iyo xaaladda cabsi ee ku aadan in naftooda badbaado ay helaan.